kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogta shiino oo aan kusoo gudbino xogaha ugu dambeeyay iyo warbixinada dunida. barnaamijkan qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda Soomaaliya waxay celisay diyaarad ay leedahay dalka Kenya oo ka degi lahayd magaalada Hargeysa. xaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya ee rabshadaha ka dhacay ayaan idin soo gudbin doonaa. dalka Qatar iyo dalka Turkiga ayaa qaatay qorshe kaga sii xanaajinaya dalka Imaaraadka iyo waliba dalka Masar ee arinta dalka Libya. Turkiga ayaa dacwad ka gudbiyay faldambiyeedyada dalka Imaaraadka Carabta ee ay ka dhigtay dalka Libya. dalka Turkiga sida gacanta uu u dhigay siyaasadda guud ee dalka Libya ayaa idin soo gudbin doonaa iyo sidoo kale warbixino dheer ah oo ay ka mid yihiin wadahadalada saddex geesoodka ah ee u dhaxeeya dalalka Itoobiya, Masar iyo dalka Suudaan iyo warbixino kale ayaan barnaamijkeena idinku soo gudbin doonaa qaybta koobaad. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa celisay hawada Soomaaliya diyaarad ay leedahay dalka Kenya oo Chad Siday. diyaaraddan waxaa la sheegay inay Siday Chadka Mirooga oo ku wajahnaa magaalada Hargeysa. wararku waxay intaas raacinayaan in diyaaradda ay ku rarnayd ama ay rarnayd ganacsato Chadle ah Somaliland. amarka hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya ayaa diyaaraddaasi dib uga noqotay garoonka diyaaradaha ee Wajeer iyadoo ay ku eedeysan tahay inay ku soo xadgudubtay hawada dalka Soomaaliya. dalka Soomaaliya oo ay xidhan yihiin duulimaad kasta oo caalami ah marka laga reebo diyaaradaha qaar sida dadka Soomaalida kuwa ku adoonsanaa garoonada dunida. waxaa sidoo kale xayiran Chadka ka imaan jiray dalka Itoobiya marka laga reebo qaar soo maraya dhulka oo soo galaya deegaanada Somaliland. Kenya ayaa sheegay in maalin hore ay diyaarad ay leedahay Chad ay geysay magaalada Barawe, balse warkaasi ayaa la sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay eedeysay celinta diyaaradda Chadka u waday Hargeysa. ayaa laga cabsi qabaa in khilaaf uu u keeno dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo maalmihii dhawaa sameynayay isu soo dhawaansho dhinaca siyaasadda iyo wadahadallo u dhaxeeyay labada dhinac. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in diyaaraddaasi ay ku xadgudbaysay qaranimada Soomaaliya isla markaana ay jebinaysay amarka dowladda federaalka Soomaaliya ee ah inay xidhan yihiin duulimaadyada caalamiga ah. isla maamulka Somaliland waxa uu si adag uga jawaabay digniinta dalka Shiinaha ay gaarsiisay ee salka ku haysa xidhiidhka ka dhaxeeya Taiwan iyo Somaliland ee dhawaan ay sameeyeen. dhawaan ayay ahayd markii la sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la yeelanayaan Taiwan. labada maamul ee Taiwan iyo Somaliland ayaan haysan aqoonsi caalamiga ah oo dunida oo dhan ah iyada oo ay isu magacaabeen safiiro waxayna wada gaadheen heshiis wada shaqayn dhan walba ah, balse waxa arrintaasi digniin ka soo saartay dalka Shiinaha. safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya warbixin ay dhawaan soo saartay waxa ay si adag uga jawaabtay inaysan aqbali doonin faragelin lagu sameeyo dhulka Shiinaha, balse waxa arrintaas ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Faratoon oo sheegay inuusan culays badan u arkin hadalka ka soo yeedhay safaaradda Shiinaha ay ku leedahay magaalada Muqdisho. warka Shiinaha uma aragno in culays uu nagu yahay, inagaba waxa ina sheegata Soomaaliya halka Shiinaha ay sheegtaan Taiwan. waxaan nahay kuwa ka madax bannaan mana qusayso arrintan, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yaasiin Faratoon. Taiwan ayaa heshiis diblomaasiyadeed la yeelatay Somaliland bishii February, balse waxaa qarinaysay Somaliland taasoo aysan jeclaysan Taiwan. Taiwan ayaa sheegtay in Somaliland ay joogaan ama ay u joogeen wakiilo ka socda ilaa iyo 8 dal oo Itoobiya ay ku jirto, balse wakiiladaas oo qunsuliyada ah. sidoo kale Shiinaha ayaan wax qunsuliyad ahayn xitaa aan ku lahayn Hargeysa iyada oo joogta Muqdisho iyo Djibouti oo ay ku leedahay saldhigyo badeed dalka Djibouti wadanka Shiinaha. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Cabdiraxmaan Athani ayaa amaanay xiriirka istaraatiijiga ah ee ka dhaxeeya dalkiisa iyo waliba dalka Turkiga. xiriirka istaraatiijiyadeed ee ka dhaxeeya dalkiisa iyo Turkiga waxa uu korayay maalinba maalinta xigta, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, maalgashiga, ganacsiga iyo tamarta iyo difaaca sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar. waxaa Khamiistii dalkaasi booqday madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan isagoo wada hadal la qaatay amiirka dalka Qatar Thamin bin Hamad Al Thani. Erdogan ayaa waxaa la socday wasiirka kaydka iyo maaliyadda iyo sidoo kale gaashaandhigga iyo agaasimaha isgaarsiinta iyo afayeenka madaxweynaha Ibrahim Kalin iyo sidoo kale madaxa sirdoonka qaranka dalka Turkiga. taas oo muujinaysa nooca ay yihiin waxa laga wada hadlay iyo xoog ay leedahay diblomaasiyadda u dhaxaysa dalka Qatar iyo dalka Turkiga. sida lagu sheegay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar waxyaabaha laga wada hadlay waxaa kamid ah sidii loo xoojin lahaa
taageerada Libya ee China oo ay labaduba taageerayaan halka ay dalalka go'doomiyay ay la jaan qaadayaan kooxaha mucaaradka ee LNA iyo sidoo kale istaraatiijiyada ay kaga soo horjeedaan dalka Qatar iyo dalka Turkiga. arrintan waxay fariin cad u diraysaa dalalka khaliijka ee dalka Qatar go'doomiyay oo soo jeediyay inay wax kasta ay furayaan haddii Qatar xidhiidhka ay ka furato dalka Turkiga, balse Qatar waxay sheegtay in ay dareensan tahay in iminka ay ka muhiimsan tahay maqaamkeedii hore ay u lahayd ka hor intii aan la go'doomin oo ay ka faa'iideeyay xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya dalka Turkiga iyo waliba dalka Qatar. wadanka Turkiga ayaa kaalin weyn ka qaatay sidii uu u badbaadin lahaa xilliga ay dalalka khaliijku go'doomiyeen dalka Qatar. dalka Qatar ayaa kamid ah dalalka sida weyn u taageeraya dagaalka lagula jiro Khalifa Haftar ee dalka Libya, iyada oo wadanka Qatar uu u diray qaar kamid ah diyaaradaha aadka u culculus ee militariga wadanka Qatar. labada dal ee Qatar iyo Turkiga ayaa fariin cad u diray dalalka Imaaraadka Carabta iyo waliba dalka Masar faragelintooda ay ku leeyihiin dalka Libya. kulankan ayaa ahaa kulan muhiim ah oo ay wada qaateen madaxda ugu sareysa wadanka Turkiga iyo dalka Qatar, iyada oo dhanka kale wadanka Turkiga uu sii xoojinayo siyaasadiisa dalka Libya oo inta badan uu gacanta ku dhigay. ayaa dhawaan wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga oo booqday dalka Libya Tripoli jimcihii waxa uu la kulmay madaxa ra'iisul wasaaraha dalka Libya Faisal Siraj iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Libya Salah al-Numrush si ay uga wada hadlaan iskaashiga militari ee ka dhaxeeya labada dal. dalka Turkiga ayaa ku yeeshay kaalin weyn oo wax ka bedeshay dagaalka dalka Libya. wasiirka difaaca ee Turkiga iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga ayaa sidoo kale la kulmay saraakiisha dalka Libya si ay uga hadlaan xaaladaha ugu dambeeyay ee siyaasadeed iyo sidoo kale khilaafka ka taagan in ay ka baxaan kooxaha mucaaradka iyo taageerayaashoodu saldhigga Sirta iyo waliba Jufra. xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha dalka Libya Faisal Siraj ayaa jimcihii sheegay in labada dal ay doonayaan inay sii horumariyaan xiriirka labageesoodka ee ka dhaxeeya labada dal. dhanka kalena safiirka dalka Turkiga ee qaramada midoobay u qaabilsan ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ay wado olole ay doonayso inay ku maamusho gobolka bariga dhexe, iyagoo ku eedeeyay inay geysatay faldambiyo dagaal. waraaq ay u dirtay golaha amniga qaramada midoobay iyo xogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa safiirka dalka Turkiga waxa uu cadeeyay talaabooyinka Imaaraadka inay u dhigan tahay dambiyo dagaal oo sababay khasaaro ballaaran oo rayidka ah oo ay ku jirto dalka Libya iyo burburinta dhammaan nidaamyada dhisnaa ee dunida sida Libya iyo waliba dalka Yemen oo la doonayo in lagula xisaabtamo Awoodeda. sababta ficiladan ayay sheegtay inay tahay kuwa aan loo dulqaadan karin dalka Turkiga oo loo baahan yahay in lagula xisaabtamo dalka Imaaraadka Carabta dambiyada dagaalka ee gashay. hamiga xad-dhaafka ah ee Awoodeda ayaa xukumaya gobolka ballaaran isaga oo ku nuuxsaday ficiladani inay ka dhasheen waxa aan loo dulqaadan karin oo ka baxsan arrimaha bini'aadamka, iyada oo loo eegayo dhibaatada ay ka geysteen dalka Yemen, iyaga oo hadda doonaya in mid la mid ah dhibaatada ay ka geysteen dalka Yemen ay geliyaan dalka Imaaraadka Carabta dalka Libya. safiirka dalka Turkiga waxa uu ku wargeliyay dhammaan golaha ammaanka qaramada midoobay inuu xasuusiyay in Imaaraadka Carabta ay ku xidhan tahay siyaasadooda mid ka baxsan sharciga caalamiga. waxa uu cadeeyay ficilada Imaaraadku ay ka wadaan Yemen, isagoo xusay in 10,000 oo reer Yemen ah oo ay ku jiraan dadka rayidka la rumaysan yahay inay ku dhinteen faragelinta Imaaraadka iyo isbahaysiga ay hogaaminayaan Sacuudiga. faragelinta noocan oo kale ah sida uu sheegay safiirka dalka Turkiga waxay horseetay dhibaato bini'aadanimo ee ugu sareysa dunida. xaaladda Libya, safiirka Turkiga waxa inta uu ku daray in isla buugga militariga ee Yemen loo isticmaalay ay doonayaan dalalka Imaaraadka Carabta iyo dalka Sacuudiga inay ka sameeyaan. dalka Turkiga waxa uu soo jeediyay golaha amniga qaramada midoobay in baadhitaan ay ku sameyso dambiyada dagaalka ee ay gashay Imaaraadka Carabta dagaalada dalka Yemen iyo kuwa ay ka wado dalka Libya. ugu dambeynna wadaxaajoodyo saddex geesooda ah ee Itoobiya, Suudaan iyo Masar ayaa la doonayaa inay dib u bilaabmaan kadib markii dalka Masar ay aqbashay wadahadallo dib loogu bilaabayo wadaxaajoodyada, iyadoo hore u geysay golaha amniga qaramada midoobay kadib markii ay diiday in wadahadallo dib loo bilaabo. wakaaladda wararka ee Suudaan waxay sheegtay in wadaxaajoodka saddex geesoodka ah ee ku saabsan muranka biyo xidheenka webiga Niil uu u turjumayo inay dib u bilaabaan wadahadaladooda. toddobaad ka hor wadaxaajoodyada dalalkaas ka dhaxeeya ayaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday kadib markii ay heshiis ka gaari waayeen qaabka loo buuxinayo biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado webiga Niil.
Itoobiya ayaa ku adkaysatay in bisha July ay bilaabayso buuxinta biyo xidheenka. Masar iyo Suudaan ayaa dhankooda ku dooday in Itoobiya ay bilaabi karin buuxinta biyo xidheenka ilaa iyo heshiis laga gaadho. Wasaaradda biyaha iyo waraabka ee dalka Masar ayaa sheegtay in wada xaajoodka saddex geesoodka ahaa ay Jimcihii shalay gelinkii dambe u dib u bilowdeen. Maanta oo Sabti ahaydna wasaaradaha biyaha ee saddexda dal iyo guddiga farsamada ee wada xaajoodka muranka biyo xidheenka ayaa dib u bilaabay kulamo ay ka yeelanayaan wada xaajoodka waxa uu qayb ka yahay isla markaana si weyn uga qayb galaysa dalka Koonfur Afrika oo ah wakiilka Midowga Afrika. Warmurtiyeed ku saabsan ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya lagu sheegay in heshiis la'aan ay dalkiisu bilaabi doonto buuxinta biyo xidheenka, iyadoo sheegtay inaysan ahayn shuruud in laga gaadho heshiis ka hor inta aan la buuxin biyo xidheenka. iyadoo dhanka kale dalka Itoobiyana ay ka taagan tahay qalalaha siyaasadda. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay in rabshadihii maalmihii ugu dambeeyay ka socday dalka Itoobiya ay maalgeliyeen kuwa dana shisheeye. Ra'iisul wasaaraha oo shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka hadlay xaaladda dalka Itoobiya ay ku sugan tahay. Waxa uu sheegay in dawladdu ay qabatay gacan ku dhiiglayaal ka dambeeyay dilka Jaalu fanaankii caanka ahaa, kuwaasoo doonayay inay iska horkeenaan dawladda iyo weliba sidoo kale dadka shacabka ah oo abaabulay shakhsiyaadkaas. barnaamijkan intaan ku soo gabagabeynayna inta qiimaha kala kulmi doona nabadgelyo.